بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد وياي عبد الرحمن يوسف حاج محمود كم قاعدين فريلة waxaan maanta oo taariikhdu ay tahay 17 bishii afraad 2005 kan halkan baaq uga soo jeedinaya shacabweynaha reer Soomaaliland iyo baarlamaanka baaqaas oo ku wajahan arintan imika soo cusboonaatay ee lagu wareejinayo dekada Berbera taasoo dekada dhawaan la doonayo in lagu wareejiyo shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee Dubai World haddaba waxaan shacabku soo jeedinaya iyo gaar ahaan baarlamaanka aan leeyahay waa in arinta la hakiyaa arintaas ma aha arin laga fiirsaday waa arin lagu degdegay maadaama ay xukuumadda u hadhay muddo aad iyo aad uga yar 3 bilood haddaan dib u soo noqono maalgashiga maxay ahaydey mashruucda maalgashiga ee Soomaaliland markii aanu akhrinay aanu darisnay maalgashigu waa wax loo baahan yahay laakiin waqtigan xaadirka ah arintan degdeg ah ee lagu wareejinayo dekada Berbera waxaan u aragnaa arin mid roortays ah arin lagu degdegay oo ka gaarsiis ah markaan u fiirsanay xeerarka maalgashiga ee Soomaaliland waxaan ogaanay ama anigu gaar ahaan ogaaday inay yihiin wada qabyo waxaan ogaanay waqtigan xaadirka Soomaaliland inaanay ka jirin shirkadaha caymis oo badbaadin kara shirkadaha caalamiga hadii maxay ahayd heshiis lala galo waxaan ogaanay in maxay ahayd wadanka aanay jirin baanan caalami ah oo ay la dhilgareeyaan shirkadaha caalamiga ah waxaan ogaanay in ay wadanka ka jirin maxkamado adag oo madax banaan oo xubin ka ah maxkamadaha adduunka waxaan ogaanay in aan wadanku lahayn ictiraaf oo aan adduunka laga ictiraafin sidaa daraadeed maalgashi kasta ama xiriir kasta oo la yeelay shirkadaha caalamiga ah mar walba Soomaaliland u daba fadhiisanayso dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo caqabad ku noqonaysa goonis isu taagii Soomaaliland waxaan ugu maqaalaa hadda Imaaraadka inay madax ka timid dawladda federaalka ay joogaan oo ay la kulmayaan si arinta loo falanqeeyo taasoo ah khiyaamo qaran oo la khiyaamanayo qarannimada Soomaaliland waxaan iyadana maxay ahaydey qabyo ah markii aan u koor galnay ee aanu akhrinay xeerarka qabyo qoraalka ee maalgashiga Soomaaliland inaan xuquuqdii maalgashaday yaasha ajnabiga hiba aanay meeshaba ku jirin oo aanay sugnayn waxaan ogaanay xataa xeerarkan maalgashiga ee Soomaaliland aynu haysanaa inaanay ka diiwaan gashanayn oo aan laga aqoon ma garanaysaa caalamka waxaan ogaanay shirkadahan ay ka mid tahay Dubai World iyo shirkada ka mid tahay shirkadaha waxa kaloo ka mid ah shirkad Faransiis oo iyadana la Bolere waxa ka mid ah shirkad Sacuudi oo la yiraahdo Prime Africa waxa ka mid ah shirkad kaloo iyadana ma garanaysaa qudareynaysa oo dekada Soomaaliland oo iyadana la yiraahdo Kuwait Logistics oo laga leeyahay Kuwait afarta shirkadood midna dawladda dhexe mooyaane wali maalgashigan ay doonayso inay dekada Soomaaliland ku maalgashato wali ma soo gaarsiin ma garanaysaa waxa heeday baarlamaanka ama golaha wakiilada waxay ku kooban tahay dawladda dhexe ay ku kooban tahay taasoo maxay heeday jabinaysa ma garanaysaa qaranka Soomaaliland waxa muuqata inay arintan marka iyadoo intaasoo dhaliilay ay jiraan arintan imika maxay ahaydey aanay shirkadahan ilaa iyo tan maanta saxiixeeda ama berita loo fadhiyo saxiixeeduna aanay ilaa imika aanay haysan shahaadad maalgashi oo dastuurku soo shaambadeeyay oo la arkay dakhligii ay wadanka gelinayeen oo loo sharciyay ilaa imika aanay jirin arintan heshiiska imika Abu Dhabi loo fadhiyaa shakhsiyan anigu waxaan u arkaa inay tahay mid dastuurka ka hor imanaysa mid xaaraana waxaan ka codsanayaa shacabweynaha reer Soomaaliland iyo baarlamaanka maxay ahayd reer Soomaaliland inay arinta si wada jira ay uga fiirsadaan oo ay iska hortaagaan xukuumaddan ay imika u hadhay 2 bilood iyo barku ee imika mid roortaynaysa ee ka gaarsiiska ah waxa inagu maqaalaa oo ka wada dheregsanahay heshiisyadii caalamiga ah ee la gashay shirkadihii ajnabiga ah ee baaraya shidaalka Soomaaliland taasoo dhulkii Soomaaliland aan wada ognahay in loo qaybiyay block by blocks loo qaybiyay oo ilaa imika shuruucdii heshiisyadii shirkadaha ay dawladdu dhexe la gashay aan wali la soo hordhigin golaha baarlamaanka taasoo ay tahay wali ciidamo la isku sameysanayo ee la isku soo maqan yahay sidaa daraadeed waxaan maxay ahaydey
الشعب كسومالان أنا سويت شيء يا برلمان كوا إنا وحقوق قاطان وحي شالي دعي شركة channel energy شركة بترول يمكن تركيا قلقلها أي وضح هذي وحي هيد ده دعشيري مرسيس بيهيد ورمانتا إبتي سومالان هذي سواد دكتور بربرة هدي اللي إذا مرسية برلمان كوا لبيه تمنك حمرات برلمان هدي اللي إذا مرسية وإن الشرف دع إذنك أي إذا كحرتها هلا إذا سومريا كدودا كفريستا حدا أو قرتان الوضع كأنفع كسو كورنيسو مركب محا هذا ولا سيدين كرا لكن إن أفر دلال أو أن إصلاحه السنين أي كل بدل عندك ضعفان أو أي مقرنة واحد دونان كيالان مصير كي شعبك سومالي لان أي أفرت مليونها كله وصدح مليون يبر إيهات مليون دبادة داسن مصير كي أفرتها مليون إبتي دقالها إلا جحب أي ودكدي بربراها دي ما أنت أفر إلن وقربتشوك وبضني أيضا مرسيان وعيب يشرف دعية كلام الآن وحلي دكدونيا إن سيدي إسباردي دوانا لدكتي دكدي بربرا أو أفر دامسان إن أرنتنا أو أفر دامسان شعب كرير سومالان جارهان شغالها دكدة بربرا يقلفت جوده وحن كعد سنة إن أرنتها كديان أي سهر تاجان مظاهرات سلمية أو ودك وجسنا أو حق الله تستور كسية إن كسميان واي شغدودي مسجنا هذا قلب إلكترونيكس عصبة لكينيا قلب هيدروليك بالكينيا ولابت الدجية حماليستي ماشي ويا كبحيسا قلب كان administration كوحلة دونيا ضد ICT information technology high profile لكيني دونا أجنسية لكيني دونا إيشيانا أو لو شقيسته حقوق دي يشغاله ودنيجها المدنيجها ماشي وكبحيا سي أن لا دريمن بو كبحيا تاسواتا هذا نص نقضه شركة دبي وول إمك محاه هذا أرنتي إذا الوجرة laga wado imika in ay saxiixato maxay ahayd dekedan oo arinta la wado shirkadda Dubai World waa shirkad caalami oo aad iyo aad u ballaaran oo adduunka dekado badan manage karaysa laakiin nasiib daro dekadihi mandaqada ayay ku feel garowday maxaa kamid ah dekadaha waxa kamid ah dekada Djibouti ayay ku feel garowday oo imikana ay maxkamada uga socdaan ariga ingiriiska magaalada caasimadda London way ku fool garowday managementkii dekada way ku fool garowday waxa iyaduna qalabkii ka furatay dekadii qadiimiga ahayd ee cadan oo iyaduna maxay ahayd dekadaasina ku dambeysay markii qalabkii laga furtay meel kalluumaysatadu ay maxay ahayd doonyaha yar ku soo xidhaan waxa iyaduna maxay ahayd maxkamad isla galeen oo iyaduna ku fashilantay dekada Senegal oo iyaduna maxay ahayd halkii horumar laga doonayay ay baabiisay sidii doontay iyo istaan bay ka dhigtay sidaa daraadeed aynu ku aqliga saliimka aynu ku wax ku qaadano sida ka yeeshay dekedan Djibouti koonaheena ma garanaysa saaran matii taas horumar gaarsiin weyday ee u xanibtay dekedeeda oo imika dawladda Djibouti ay deked kale iyadu wadan ahaan u samaysanayso markii ku faylgowday kontraagi ma taas berbereen oo dhisaysa oo horumar ka sugeena waa maya waa arin la doonayo in laga halafsado lacag dilaalisa oo xaqalqalina oo tiro badan ilaa iyo waxa lagu qiyaasaa markana istimeed gareeyo anigu shakhsiyan 16 milyan waxa lacagta raacsan oo la doonayo in qaleelka lagu qaybsado lacagta marka la yiraahdo waxa lagu horumarinayaa degaankii oo iyadoo lacag kala ah lacagahaas ayaa meesha ku jira oo la kala qaybsanaya wax allaala iyo wax maxay heeday horumar oo inooga soo socda ma jiro waxa kale oo meesha jirto dastuurkeenu leeyahay haddii ay dawladda u hadhay muddo ka yar 6 bilood wax kontraag ah oo caalami ma geli karto xukuumadda Siinaayo waxa u hadhay 2 bilood iyo 8 cisho 70 cisho u hadhay 70 cisho miyay ku bedeli kartaa ma qandaraas ma cid kula shaqeyn kartaa dastuurku wuxuu ka hornaa dastuurku wuu mamnuucaya wuxuu leeyahay wax kontraaga oo dawladdu muddo xileedkeedii uu gaabsi yahay oo dawlad ku jirta xilligii kala guurka wax qandaraasa oo caalami ah geli kartaa ma jirto waxaan kale oo idin ku daraya hantida maguuraanka ee qaranka sheekada hadda halka ku socoto aad iyo aad ayaa naga xumahay inay dhinac u ciirtay inay ishii soo wada eegayso xukuumadda
in dhaqaalihii iyo dantii guud ee magaranaysa qaranka oo dhan ay ganacsato gaar ah iyo shakhsiyaad gaar ah lagu naasnuujiyo waanu haynaa shirkadaha liiska shirkadaha baxay 4 sanadood iyo barkii ay xukuumaddu joogtay isagoo qoraal baanu haynaa waxaan shakhsiyan ka xishooda maxay in halka ka sii daayo oo aan umada reer Soomaaliland iska hor keeno war haddii sidan ay ku sii jirto dadka loo soo bandhigayaa dadkii idin doortay shacabkii idin doortay xukuumad ahaan 50 idin cudeeyay shacabkii ayaa imikana idinka soo horjeeda ee shacabka isku dirina la suga hadda muddo kale ku guuleysataan oo cagta u dhiga ayaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi